بسم الله الرحمن الرحيم أرضي سود هذا ومركلة chapter كيني لحد circular motion وحينو مرينا lesson كأفراد أما 10 كأفراد وكسبسن سيدا شاشة دينو كمقطبة universal gravitation أما حوجة في سجدت كأونكا أفصوماليان و universal gravity أما universal gravitation. Universal gravity, by the end of this lesson, عشر كان مركا ودا ماذا the learner should be able to مركا عشر كان ينودا ماذا برتو وودو يلانتونا to state إنه شغال the law of universal gravity حركة وبسجدت كأونكا إنه شغال سيدو كلا وبرتو وودو يلانتونا to calculate إنه حسابيو the attraction force awooda of isjiidadka between udhaxaysa two objects. The attraction force waa awooda ay isku soo jiidanayaan laba walxood inuu xisaabinayo attraction force between two objects. qodobkeena saddexaad ee ugu dambeeya explain inuu sharaxaad ka bixiyo the concept of geospace. dabcan geospace waa nooc satellite-yada ka mid ah geostationary space ama geostationary satellites. aynu bilownay casharkeena Newton's law of universal gravity. xeerka Newton dabcan hore waxaan u soo baranay xeerar uu Isaac Newton leeyahay oo ku saabsan laws of motion. dabcan fasalka form 3 aynu ku soo qaadanay mawduucanana wuxuu ku saabsan yahay awoodda ama xoogga qofisjiidadka uunka universal gravity. This law states that xeerkani waxa uu dhigaya algaan fiirino the attraction force awooda is soo jiidashada between two objects ee u dhaxaysa laba shay xoogga is soo jiidashada u dhaxeeya laba shay laba mass two masses ama two bodies laba object laba mass is directly proportional xooggaasi waxa uu directly proportional leeyahay algaan fiirso waxa la yiri force is directly proportional waxa uu saamigal quman leeyahay directly proportional waxa la yiraahdaa saamigal quman yu saamigal quman leeyahay marka the product of the two masses isku dhufashada labada mass 1 iyo mass 2 waa object 1 iyo object 2 way ka dhigan tahay waxaan u jeednaa m1 iyo m2 mass 1 iyo mass 2 object 1 iyo object 2 there is a force of attraction ay isku soo jiidanayaan labada walxood marka waxa tiraahdaa xoogga ay labadan walxood isku soo jiidanayaan waxa uu saamigal quman leeyahay the product of their masses labadooda la isku dhuftay ayuu saamigal quman leeyahay. okay sidoo kale xeerka qaybtiisa kale an inversely proportional waxa uu saamigal rogaal leeyahay xooggani inversely proportional waxa uu saamigal rogaal leeyahay to the square of the distance between the two masses square-ka fogaanta u dhaxaysa labada mass m1 iyo m2 fogaanta u dhaxaysa ayuu saamigal rogaal leeyahay directly proportional saamigal quman inversely proportional saamigal rogaal waxa laga hadlayaa waa maxay object 1 iyo object 2 mass 1 iyo mass 2 okay distance-ga u dhaxeeya ama fogaanta u dhaxaysa waxaanu ku calaamadaynay r ama d ama r waa distance-ga u dhaxeeya labada mass u dhaxeeya way haddaynu dhamaystirno f is directly proportional to the product of m1 m2 mass 1 iyo mass 2 sidoo kale waxaan leenahay f is inversely proportional waxay saamigal rogaal la tahay to the square of the distance between the two masses isku dhufashada waxa la square-ka fogaanta u dhaxaysa labada mass wayahay formulada haddaynu eegno waxaanu ku soo koobaynaa force waxa uu la mid yahay g oo ah gravity ama awoodda qofisjiidadka constant of proportionality aynu ku magacaabayno waxay f waxay kula mid tahay g times m1 m2 divided by r square. This is the law of universal gravity. The law of universal gravity jida waa constant marka xeerkan waxaan u malaynayaa waxaan hore u soo qaadanay xeer kale oo sidaan u dhignaa arday iyo xasuusta xeerkan la garanay
waxaynu kusoo qaadanay fasalka form 3 Coulomb's law soomay Coulomb's law wuxuu dhignaa force is directly proportional to the product of the two charges imika waa maxay two masses soomay labada xeer maxaa farqiga u dhaxeeya farqiga labada xeer u dhaxeeya sax farqiga uu noqonaya xeerkani kaliya wuxuu qaabilsan yahay ama ka hadlaya attraction between two masses laakiin Coulomb's law muxuu ka hadli jiray wuxuu ka hadli jiray xoog ay isku soo jiidanayaan ama repulsion ay ku sameynayaan laba charge 1 iyo charge 2 marka qaacidada waxa uu qornaan jirtay F is equal K oo constant of proportionality jiidu booski taagan tahay kale inoo taagan waa maxay marka charge 1 iyo charge 2 maxaa loo qaybin jiray marka to the square of the distance between Coulomb's law iyo universal gravity labada xeer way soo eegeen kaliya xoogaa wax farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan midna laba charge buu ku saabsan yahay midna wuxuu ku saabsan yahay laba mass ka waa attraction iyo repulsion kale waa attraction oo kaliya gravity waxaan u qaadanaynaa 6 g waxaan u qaadanaynaa 6.67 times 10 to the power minus 11 newton meter square per kilogram square ayaynu u qaadanaynaa example 1 aynu tusaalayno determine the force of gravitational attraction between the earth waxaad xisaabinaysaa ama soo saaraysaa force attractionada u dhaxeeya dhulka oo maaskiisu yahay cufkiisu yahay 6 times 10 to the power 24 kg and 70 kg boy who is standing at the sea level a distance of radius ka qaada 6 times 10 to the power 6 meter from the center way okay sida halkaan ka muuqataba hadaynu fiirino waxaanu haysanaa sawirka diagramka wuxuu muujinayaa qofku intuu u jiro marka centerkii ama radius intuu noqonayo given kana waxa ugu horeeya marka hadaynu solution iraano waxaan sameysanaynaa given oo waxaynu haysano wanted na muxuu noqonay waxa markaasi la doonayo inaynu soo saarno aan iraano given ka marka mass 1 waa imisa mass of r labada midka doonto 1 ka dhig 6 times 10 to the power 24 kg aye mass 2 maxaynu haysanaa 70 kilogram mass of the boy صح maxaynu kala haysanaa r the radius the distance between the two masses 6 times 10 to the power 6 meter maxaa kaloo haysanaa gimankana maxaa kaloo ka mid g oo constant soo ma intee baan u qaadanaynaa 6.67 times 10 to the power minus 11 newton meter square per kilogram square given ki wada haysta wayay haddaba halkaan soo fiiriya arday aynu xallino markaynu tan oo kale ka shaqaynayno waxaan samaynaynaa givenka sida halkan inuu ku qoranba formuladaynu ku apply garaynaa substitution baynu samaynayna ur ku bedelanaynaa inoo soo qaad marka waxaad tidhahdaa force wuxuu la mid yahay jida maxaa haystaa 6.67 times 10 to the power minus 11 way maxaa raacaya markaa newton meter square per kilogram square way lagu dhuftay mass 1 maxaa ku qoran mass 1 xaga ka eeg waxaa qoran 6 times 10 to the power 24 kilogram maxaa kaloo ku xiga mass 1 waa haysanaa sax mass 2 imisa noqonaysaa waa 7 times 10 to the power 1 10 to the power 1 lama muujinayo dabcan way maxaan u qaybinayna marka inta tan waxaa ku raacsan iyadana kilogram baa ku raacsan divided by waxaad u qaybinaysaa square of the distance soma radius ko squarean square macnaheedu waxa ka dhigay laba jeer isku dhufo marka waxaad tiraa 6 times 10 to the power halkaa 6 baa haysta waa meter lagu dhuftay in la eg iyadaba dee laba jeer la isku dhufanaya mogta waxaad tidhahdaa halkaa inoo fiiri waa isla iyadii 6 times 10 to the power 6 waa raacayahe meter way aynu shaqayna marka halkan horta numberska waa xisaabta dee hadba sidii adiga kuu fudud marka ayaad u samaynaysa waxaan leeyahay 6 iyo 6 isla turinaya mogta aye halbeegyada arday force maxaa lagu cabiraa newton soomayn force newton baan ku cabiraynaa marka halbeega newton siduu ku soo baxayo halkaa u fiirso
okay meter square oo halkan ah iyo labadana meter square bay noqonayaan marka isku dhacaan soma iyagana isla to way maxaa kala soo haray halkan waa kilogram square halkana waa labadana isku dhacayo waxa noqonayaan kg square soma isla cancel garee maxaa halbeego meesha kuugu soo haray unitka kaliya meesha ku soo haray muxuu noqday newton ka kaliya soo ya newton kaliya meesha kuugu soo haray marka halbeega force-ga raacinaysa wuxuu noqonayaa newton ayuu noqonayaa number ahaan marka numbers aynu isku dhufano haddaynu isku dhufano 7 aynu ku dhufano 6.67 waxay noo soo baxaysa dabcan halkaa 46.69 way divided by xagga hoose maxaynu haysanaa labadan mid baynu ka takhalusinay sooma divided by divided by 6 way powers sababta xagga powerada u imow ya xagga jibeerada u imow indexkii caadiga taqaanayo la isticmaalaya xaggan maxaa power haysta -11 sooma labadan ugu imika waa plus kama plus kana waa maxay waa plus isku soo dar 12 ka kor maxay ku imaanaysaa minus okay 10 to power halka maxay helaysaa 10 to power -23 ila soco 12 ka waa minus halkana maxay haystay 6 iyo 6 oo 12 soo plus bi kor ku tagaya minus bi kor ku tagaya marka haday plus siin soo way isku darsamaysaa marka maxay noqotay minus oo israacayaan maxay noqotay halka 20 iyo waa 12 iyo 23 soo way dhinaca kale maxaynu haysanaa halkan maxaa ka soo haray qaybta positive power 1 iyo power 24 iyana waxay noqotay 10 to power 25 ay laba isku daran soo kala jaray alawada kala bedelayso ya oo kala goynaysa marka waxa ku noqonaysaa answerku waa 10 to power 2 halbeegyadana maxaa ku soo haray newton ba ku soo haray way halkan haddaynu isku qaybino waxaan helaynaa 7 how much 7.78 maxaa raacsan marka time of times 100 newton point uu ka saarayaa dabcan waa 778 newton the force of attraction between the two masses force-ga attractioneed of isjiidadka u dhaxeeya awoodda u dhaxaysa ee labada maas ay isku soo jiidanayaan dabcan waxay noqonaysaa 778 newton dabcan point ya raacsan point 16 ma point iska tagayna maadaama ay ka yariin 5 ay ka yariin way geospace waxaan ku sheegnay geostationary satellites ba dabcan loola jeedaa waa satellite-yada due to their orbitkooda awgii inoo la muuqda ama dadka ugu muuqda in ay yihiin kuwo stationary ah marka hore intaynaan taa sharxin halka waxaanu ka muuqanayaa arday sawirkan u fiirsada station 1 iyo station 2 S1 iyo S2 waa ku qoran laba objective aynu ka soo qaadnay way labada objective dhulkay ku meerayaan marka midna orbitkan buluga ayuu marayaa midna qaybta guduudan buu marayaa haddii labadoodu ay ku soo wareegaan hal wareeg ay sameeyaan isku waqti ma ku qaadanaysa waa may tusaale haddaan idhaahno sheeg axmed haddii uu ku soo wareego fasalkan aynu ku jirno uu hal mar ku soo wareego cabdiraxmaanna uu ku soo wareego iskuulka daaradiisoo dhan uu ku soo wareego labadoodu waqti islamida wareegoodu ma qaadanaya may uu kala duwanaanaya soo maxaa kala duwan marka masaafada ay soo jarayaan ayaa kala duwanaanaysa soo then sidaasi la mida haddaynu u fiirino labada object haddaynu dhaqaajino labadooda waxay noqonayaan dabcan u fiirsa halka markay ka bilaabaan midka bulugaay ee orbitkiisu dhow yahay markuu laba jeer wareegto ayaa kaasi hal mar soo wareeganaya waxay ka dhigan tahay mar kasta oo masaafada uu dhulka u jiro ay fog tahay waxaa badanaya orbital periodka uu satellite-kaasi dhulka ku dulmeerayo iyadoo la adeegsanayo fogaanta satellite-ka dhulka loo jirsiinayo ayaa bini aadamku waxay ka faa'iidaysteen nooc satellite-yada ka mid ah oo godka la dhigaya ama orbitka la dhigaya uu noqonayo geospace geospacekaasi
markaad eegto waxay kula muuqdaan kuwa negi oo aan soconayn laakiin mar walba waa soconayaan aynu eegno marka geo orbit maxaa la yidhahdaa waxaa la halkaa u fiirso waa satellite-kii dabcan position buu ku beegan yahay maxaa leenahay geostationary marka is an earth satellite a blazed orbiting satellite earth orbiting satellite blazed waxaa la dhigaa altitude fogaan dhulka u jirta imisuu noqonaya fogaantaasi ya waa maxay 36,000 kilometers above the earth soma 36,000 oo kilomitir ayay waxay ka fogtahay dhulka ka fogta okay maxaa laga faa'iiday marka godkan 36,000 lama dhaafin lagamana yarayn ujeedada laga leeyahay marka ujeedada laga leeyahay arday waxay noqonaysaa waxaan ognahay dhulku waxa uu axis-kiisa ku sameeyaa one rotation for every 24 hours soma 24 saacba hal mar ayuu hal wareeg samaynaya satellite-kan la yidhaahdo geostationary satellite-kana waxaa lagu programiyey oo orbitalkooda la gaarsiiyey orbital periodkooda la gaarsiiyey 24 saac iminka tusaale haddaynu sii fiirino sawirka haddaynu animate garayno dhaqaajino satellite-ka fiirin xogta uu soo dirayo waxay 24 saacba ku beegan tahay 1 point mala soo daraga akhbaartu soo diray 24 saac maxay on ku tahay 1 point alasha maxay ka dhigan tahay satellite-kani dhulka wuxuu ku wareegaa 24 saac dhulkuna wuxuu hal wareeg oo dhammaystiran sameynaya 24 saac maxaa isku tayma markaa satellite-kii iyo dayax-gacmeedkii iyo dhulkii ayaa isku wareeg sameynaya halka marka waxa ka imaanaya faa'iidada ah ama advantage-ka ah in dhulka iyo dayax-gacmeedkaasi ay noqdaan isku waqti advantage-ka fiiri marka the earth rotates along its own axis each 24 hours as 24 hours kiiba mar ayuu axis-kiisa ku wareegaa whereas geospace satellites orbit around the earth 24 hours this results tani waxay keenaysaa leadka greenka akhri to receive the signal permanent on one location on earth dhulka dushiisa hal meel in informationkaasi uu online ka ahaado haddii kale waxaa dhici lahayd markaad tusaalaan ciyaaraha daawanayso kale barnaamijaa daawanayso tv ka baxaya in xoogaha 20 daqiiqo markii la joogaba aad saxan ka wareejiso 20 kale markii la joogo aad wareejiso ya maxaa raacaysa straight ka raacaysa soo hadda wuxuu ku beegan yahay dabcan Latin America ku saaran yahay dabcan Equator oo kale halkaas uu tilmaamaya marka mar walba rotation halkaas uu ku beegan yahay way arday isku day layliga waa exercise 6.4 exercise-ka waxaan ka bilaabaynaa su'aasha koowaad waxaad tidhaahdaa question 1 state the Newton's law of universal gravity xeerka sheegaysa su'aasha labaad proof waxaad proof garaynaysa g dabcan waa laba macno ay leedahay waxa qiimaheedu wuxuu noqday fiiri g waxa loo qaatay 9.8 newton per kilogram waa ku sax 9.8 meter per second square na waa sax mar waa acceleration of free fall baa la yidhaha marna waa strength of gravity marka labadoodu same meaning bay leeyihiin ama dee waxaad raacisaa haddaa meter per second square raacisid acceleration due to the gravity baa loola jeeda haddii aad raacisid newton per kilogramna waxay ka noqonaysaa markaa strength of gravity ayay ka dhigan tahay dhanka kale labadan laftirkooda isku macnaho newton per kilogram haddii la furfuro meter per second bay tegaysaa newtonku wuxuu u furfurmayaa kilogram meter per second square waxaa slash kilogram soo ma labadana isla baxaya marka meesha maxaa ku soo haray meter per second square ayaa meesha ku soo haray haddaba waxaad proof garaynaysaa tan iyo waagi dugsiga dhaxa ka soo lixaadkii soo waxaa la dhihi jiray quwwat tajaadubiya ardiya ama waxaa la yidhahdaa gravity-ga waxaa u qaadataa gravitational acceleration waxaa u qaadataa 9.8 ama 10 baadaan buuxino meter per second square haddaba proof gare radius-ka waxaad u qaadanaysaa 6.38 times 10 to the power 6 meter haye artismas maxaa u qaadanaysaa 5.98 times 10 to the power 24 kilogram marka waxaa laga rabaa proofka ayaa laga doonaya su'aasha saddexaad waxaa laynoo diray determine the force of gravity waa example-kan hadda ka shaqaynayna ayay la mid tahay su'aasha afraadna waxaa laynoo diray inaad soo saartid mass of one object maxaa haystaa objectiga kale maaskiisii waxaad haystaa
distancega labada objecti ama labada mass u dhaxaysa forcegiina waa haystaa waa 2 times 10 to the power minus 8 newton halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa casharkeena salaamullaahi calaykum